So waxaan soo baranay formka sida loo sameeyo basic formka waan soo baranay waxaan maanta ku bilaabinaa advanced form. So advanced formka waxaa weeye sida formka micnaha wax looga bedelo si advance waxaan baran doonaa waxaa ka mid ah control forms inputs. waxaan baran doonaa xoogaa yar oo drop down iyo checkbox kan baran doonaa sida loo maamulo markay noqoto react. waxaan kala baran doonaa validation wax la dhaho in aan validate garayno basically qofka information ku gelinayo in aan saxno oo macnaha hadduu geliyo information qalad ah waa u sheegaynaa waxaan leenahay informationkaas lama rabo meeshii number inay number ahaato meeshii email inay ahaato qofka inuun hore usii soconin ilaa uu wixii si sax u geliyo. waxaan kaloo sameynaynaa waxaan diraynaa API post request yaan diraynaa annagoo isticmaalayno formka. Give me a second. yar isuga ciyaal meeshaan aan wax siinaa. Okay, so waxaad karaa lahaada daaqadan furanaaya. So advanced formka maanta ka hadlaynaa micnaha habka hore aan baranay formka laakiin waxaan ku daraynaa waxyaalo kala duwan. Okay, so database waxaan u diraynaa request annagoo isticmaalayno post request. So okay, let's see marka. So hore waxaan soo baranay maxaa la dhihi jiray waxyaalaha input typeska waxaa ka mid ah checkbox, waxaa ka mid ah text, waxaa ka mid ah kuwan ayaga badan. So inputska sida waa HTML-ka caadiga ahaa marka waxay leeyihiin email jiro waxaa jiro number kuwa badan loo isticmaali jira kan ugu caansan waa textiga waaye waa qoraal caadi daartina meesha geliso passwordka waxaasna soo barana marka waxaan ku daraynaa maanta checkbox iyo drop down aan ku daraynaa. Last time maana baranin waxaan baranay bas text bas aan baranay. Okay, so let's see marka. So just like with the text inputs you can change the default values checkbox from not checked to checked. So waxaan ka bedeli karnaa so checkbox markay noqoto waa check an caadi saan camal ah isma jeed saas camal ah checkbox laga hadlayo. So habka loo bedelo waxa waaye markii uu calaamadda check saaran tahay waxaa gelinaysaa baashan waxaa ku qoraysaa checked waana qayb ka mid ah HTML-ka yaa ku qoraysaa micnaheedu waxa waaye wuu check garaysan yahay. So waxaan rabnaa marka meesha state-kanaga in aan ilaalino inuu check saaran yahay in kale taas inaan hubino. Okay, so haddaan ku laabano marka projectiga maanta aan samaynayno waa kana volunteer form aa la dhahaa. Volunteer formka just basic form input wuxuu leeyahay drop down iyo checkbox uu leeyahay. Hadda marka waa iska HTML caadi ah ma lahan wax oo ilaa ugu run yahay react ma laha. So if we look through it waa form caadi ah wuxuu leeyahay label wuxuu leeyahay input so kan ugu horeeya waa magaca so kan waaye I don't know why what happened to my God damn. Okay, so kan ugu horeeya waa name email aan kala bixino. So ujeeda meeshan labelka kulligu kor imaada so labelka waa kana kor kadibna email intana waa inputkii. waxaan kaloo haysanaa inta waa HTML waa text area so text area waa garanaysaan hal line waa ka dhigi karnaa haddaan rabno. waxaan kaloo haysanaa drop down key waa kana waa select waaye
select caadi ah kabacdina optionka ugu horeeya waa kana oo kan ah optionkan macnaheedu waxa option aan lahayn value waaye kuwa kalena value leeyihiin haddaan dib u fiirino waa kana value and then waxaan haysanaa checkboxki so on input waaye laakiin oo typekiisu yahay checkbox kadibna hadhowdii markaan bedelaynana waxaan sameynaynaa inaan ilaalino waa inuu checked yahay inuu check ahayn app.js-kana waxaa noogu jira base volunteer-ka title-ka iyo form-ka so intaas bas waayo halkan component bisa maanta la shaqeynaynaa so waxaan sameynaynaa let's start from beginning marka hore waxaan sameynaynaa formka waxaan ka dhigaynaa sidii casharkii hore aan soo dhaafnay so marka hore in aan casharka hore soo dhaafnay camal aan u isticmaalno oo state-kii iyo functionadii maamulayay aan sameyno kadibna aan ku xirno validationka intaasan kusoo ekeysiinay and then intaan kuma ekeysiinayna waxaan sameynaynaa inaan u dirno API so step 1 markay noqoto formka hadda marka laga soo gudbo intaan hadda aan sameynay yaa ii sheegi karo step ugu horeeyo maxaan u baahannahay what do we need si formka aan u ilaalino ama informationkiisa u kaydino maxaan u baahannahay state u baahannahay so state lagu kaydiyo waxa formka lagu qoro okay u baahannahay so taas waxaan leenahay marka const state magaca rabtaa la bixi kartaa intaan dhigi karnaa form state set form state use state okay so use state marka waxaan u baahanaa marka inaan gelino wax la dhaho initial state waxa waaye formka siduu yahay marka hore so saan waa xaaladiisa hore hadda meesha ku baxay laakiin xaaladiisa hore siduu ahaa oo empty-ga uu yahay inaan sameyno so waxaan sameynaynaa variable la dhaho const waan u baahnaanaynaa hadhowdii waxaa la initial form state qasab maa magacaas in loo bixi magaca rabtaa bixin kartaa waa object waaye kabacdi waxyaalaha formka ka kooban yahay halkaan gelinaynaa waxyaalaha formka ka kooban yahay waxyaalahan meesha ku qoran leh waa so waxaa ka mid ah marka ugu horeyso name waa ever waxaan kaloo gelinaynaa email waa ever waxaan kaloo gelinaynaa motivation waa kana waa ever waxaan kaloo gelinaynaa password my password waxaan gelinaynaa positions wakaasa waana waxaan halkaan ku qoran yahay waa kana positions waa kana motivation waa kana magaciisi motivation positionkana waxaa waaye waa drop downkii wakaasa magaca nameka so inaan isku ekeysiisid waaye magaca iyo inay isku ekaadaan waaye iyo initial state-kaada ama intaan gelinayna initial state marka waa basically waa state-kaada intan waa termskana sidoo kale termskana waa wixii checkboxka so saa markaan sameyno waxaan u baahannahay marka in aan ku xirno stateka inaan isku xirno initial state laakiin marka hore waa inaan soo jiidano use state so waxaan leenahay use state inta waxaan sameynaynaa marka initial statekaanaan gelinaynaa inta so marka ugu horeysaba stateka wixiisa dhan waa kuwan ah okay so hopefully taas wax qof su'aal ka qaban jira intaas hadda sameynaa all right so step 2 laba nooca loo kala sameyn karaa waxaan dhigi karnaa functionska inaan sameyno laakiin functionska inta aanan sameynin waa inaan isku xirno stateka iyo formka sidee iskugu xirnaa waxaan dhigi karnaa step 2 isku xir stateka kore iyo form inputs okay so basically waxaan rabnaa inaan fahansiino formkan inuu jiro statekan maxaa loo isticmaalaa taas value attribute waan baahan loo baahan yahay value attribute value loo baahan yahay marka input kasta waa inuu lahaado value so kan camal hadda nameka waa inuu leeyahay valuegiisa wuxuu noqonayaa
state ku noqonaya so inaad soo jiidato mid magaca ka mid ah kuwaan inaad soo jiidato so hadda waxaa fiirinaysaa kan name kana fiirinaysaa name waa name so waxaa soo jiidanaysaa nameka waxaa leedahay stateka magaciisa form state dot name aa leedahay kan marka hadda way isfahmeen stateki kan labaad waa kana waxaa waaye waa email inta maxaan dhehaynaa marka value inta maxaan lehnaa form state dot kor haddaan fiirino email so form state dot email so kuwa kalena sidoo kale ku wadaysaa so kanna waa textiga waaye so isagana waxaan siinaysaa value so let's see we're gonna put it inside here so value and a form state that motivation kana sidoo kale kan waxaa gelinaysaa marka halkan selectigaa gelinaysaa so meesha aa kuwaan dhex gelin lahayd selectigaana dhex gelinaysaa so waxaan leenahay value equal to form state that positions kan ugu dambeeyana waa checkboxka intaa la gelinayaa so waxaan leenahay may lama gelinayo kan intaan ka wadaa so input hadduu jiro inputkaa dhex gelinaysaa wixii value form state that terms okay so safe aan leenahay hadda waxba isma bedelayaan maxaa yeelay wax function waxa ma jiraan so that's step 2 taasa step 3 waxa waaye yaa ii sheegi kara step 3 maxaa u baahan inaan sameyno haddaan formkan rabna inaan ka shaqaysiino laba waxaan u baahannahay cashirka horena inoogu jireen laba function ma u baahan mid submit iyo mid qoraalka la soo geliyo inputka inoo soo akhriyo stateka noogu dira okay step 3 samee labo function mid ka dhig handle change midna handle submit so handle change wuxuu sameynayaa functionkan qasamayna handle change ku magacaabo xarta dhigata wuxuu ilaalinayaa isbedelka ku dhacay inputka so haddii hal xaraf aad qorto hal letter aad qorto wuxuu sameynayaa uu soo qabanaya taas handle submit-kana waxaa markii aad buttonkan submit-ka dhag siiso wixii aad u dirtay statekan halkaan u dirtay ayuu soo jiidanayaa so labadooda saas kale shaqada oo kala qabsadaan so waxaan ku bilaabaynaa marka handle submit-ka so waxaa leedahay const so tan hore usoo barno casharkan waa review hadda waxaan hadda sameynayna iska review const waxaan leenahay handle change okay inta maxaan gelinaynaa halkan parameter ahaan markana wato handle change functionka parameter ahaan maxaan u gelinaynaa event macnaha xaaladda la joogo xaaladana waxaa waaye meesha aad joogto so kan haddaad joogto xaaladaada waxaa waaye waa name waaye waa kana haddaad joogto kan xaaladaada waxaa waaye waa email so xaaladda waxaa laga wadaa meesha boxka ku dhex jirtaa laga wadaa boxkan haddaa ku dhex jiro waa name kana email kana waa wuxuu yahay motivation so handle changiga marka xoogaha uu ka duwan yahay kii hore right xoogaha uu ka duwan yahay kii hore waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo habkii aan datadii aan u sameynaynay waxay ahayd so hore waxaan u sameynay markii handle changiga aad sameynayso waxaad sameynaysaa marka hore waxaan leenahay copy ka samee stateka kore okay waa waxa ugu horeeya waaye kadib waxaad soo jiidataa inputka ama qaybta aad formka oga jirto okay so let me make this wrap okay oga jirto magaca waa name iyo value labadaas soo jiidanaysaa marka
so taas waa taan baranay so marka hore copy aan ka sameynaa state-ka waxaan dhan variable aan dhexgelinayna so waxaan sameynaa variable const waxaan leenahay variable kan so let me just disable my notifications variable kan waxaan leenahay waxa harta ugu magacaabi kartaa so inta waxaan leenahay input data so input data waa waxaan sameynaynaa waa object waaye objectigan gudihiisa waxa ku jiro marka hore state-ka copygiisa so saan u sameynaynaa copy haddaan rabno state inaan copy ka sameyno waxaan baranay ya saddex dhibcood aan isticmaalaynaa saddexdan dhibcood waa wax ku jira javascript waaye oo lagu soo daray waxaa lagu soo daray ES6 aa lagu soo daray 2015 marka javascript la cusboonaysiiyey yaa lagu soo daray macnaheedu waxaa waaye ama copy samee waaye ama haddii lagu siiyo objectiga waxa ku jiro kala bixbixi so destructionkii hore aan baranay camal waaye so kala bixbixina waa u isticmaali kartaa so waxaa la dhahaa spread operator waxaa laga yaabaa mustaqbalka markaa shaqo raadinaysid ama meelo aad shaqo raadinaysid in lagugu imtixaano oo lagu dhaho maxaa laga wada spread operator muxuuna qabtaa so waa kana marka spread operator waa javascript ka mid yahay javascript ES6 waaye ma aha javascript hore kuma jirin waa hab aad macnaha wax ku copy garan kartid ama wax aad destructuring aad ku samayn kartid okay so waxaan copy garanaynaa marka state-ka waxaan leenahay form state so hadda state-kana soo copy garanay state-ka waxba lagama bedeli karo ilaa aad copy ka samayso copygaas baa wax ka bedeli kartaa marka kadibna next point waxaa waaye in aan sameyno inputka inaan soo jiidano so inputka waxaan u baahanay inaan soo jiidano name iyo value marka inaan dhahno waaye isbedelka aan sameynayna marka waxaa waaye state-ka copy nooga samey kow kadib waxaa ka bedeshaa magaca so magaca waa kana so name iyo value-giisa oo kan ah so name-ka waa kana value-giisana waa kana so labadaasaan bedelaynaa habka loo bedelayana waxaa waaye waa sida hore aan usoo baranay waxaa sameynaysaa waxaa leedahay event.target.name taas waxay soo jiidanaysaa magaca micnaheedu waxaa meel kasta aad ku jirtid waaye oo box kasta aad ku jirtid magaciisa soo jiidanaya midda labaadna waa value-ga so waxaan leenahay event.target.value okay so hadda should be good but inaan u dirno waaye datadan inaan ku bedelno waaye state-ka so habkaan ugu bedelaynana waa inaan state-ka bedelno see u bedelna state-ka waxa state ku jiraan rabnaa inaan bedelno waxaan rabnaa inaan ku bedelno information halkan ku jiro state maxaa input data dhexgal waxaan isticmaalaynaa set form state aan isticmaalaynaa waana habka aad ku bedeli kartid state-ka so waxaan leenahay set form state kadibna waxaan siinaynaa datada wixii hadda aan sameynay so input data okay safe aan leenahay hadda waxa ma dhacayaan weli waa sameysheedii hadda waxa ma qormanayaan yaa ii sheegi kara sababta hadda waxa isbedelkaan aan sameynay aynan u shaqaynaynin functionka u baahantay inaad ku xidho inputska formka functionka weli maana isticmaalinba functionka meeshaan iska taagan yahay weli meel maana gelinin marka functionkan cid ka war hayso ma jirto marka waa inaan functionka ku xirno input kasto inaan ku xirno functionkan waa inaan dhahno on change marka isbedel lagu sameeyo inputkan waxaa soo jiidataa functionka la yiraahdo handle change so kulligoodna inaan saa ugu code garayno so meesha value aan gelinay baan gelinaynaa kana like that kana sidoo kale halkaan aan gelinaynaa kana waxaan gelinaynaa halkaan okay so hadda marka caadi should work wuu shaqeynayaa haddii aan cancel log ku sameyno state-ka naga so cancel log horaan u baranay tan form state hadaan ku sameyno inta tagno waxaan leenahay clear kana refresh so ma jeeda hadda markii wax bilaawnago horuu kasoo qoraya state-ka empty waayuu leeyahay
haddaan nameka wax ku qorno marka waa in uu halkaa naga tuso marka so waxaan leenahay Axmed ujeedo kaasa kan ugu dambeeya dasa fiirinaysaa Axmed kan haddaan ku qorno ahmed@gmail.com kaasa kan ugu dambeeyo ahmed@gmail.com so macnaheedu waxa waaye state wax kasta oon formka ku qorno wuxuu gelayaa statekan u gelayaa okay so hadda this is okay wax kasta way shaqaynayaan laakiin hal problema jiro halka problem waxa waaye waxaa jiro inboxkan checkboxkan ma shaqaynayo so haddii aan fiirino if we look at it refresh haddii aan saarno check waxba isbedelaan meesha ma jeedaa there's nothing changes waxba isbedelaan termska waxba isbedelaan so taas inaan saxno waaye we have to change that taas marka waxaa lagu sixi karaa keliya hadda kan uu isbedelaa caadi soo jeedid waa kaasa tablin waxaa ku jira newsletter oo kaasa isbedelaya laakiin check marka la saaro isma bedelaya so check habkan ku bedeli karno waxaa waaye ogow marka check wax laga bedelayo inbox checkbox wax laga bedelayo waa in aad u sheeg waa inaad dhahdo waa in uu yahay checked inuu leeyahay waa inuu leeyahay wax la dhaho check so meeshaan waa inaan gelino let's put in here inta inaan gelino checked inaan gelino something like that so hadda refresh taan dhahno so ma jeedid refresh markaan dhahno waa checked weli way saaran tahay macnaheedu waxa waaye waa inaan u sheegno markii dhag la siiyo in uu methodkan uu toggle ka dhigo uu noo ogolaado markii laga bixiyana oo laga saarana uu methodkan ka dhigo false ka dhigo so taas waxaan ku samayn karnaa marka in aan tagno meesha kore functionka handle change-ga aan wax ka bedelno qaybtan wax ka bedelno so habkan uga bedeli karno waxaan bedelaynaa so tan xoogaha laga yaabaa inay ku wareeriso haddii aad hore ugu wareersaneyd qaybtan waxaan sameynaynaa waxaan target garaynaynaa type so waxaan isticmaalaynaa wax la yidhaahdo waxaan isticmaalaynaa if statement camal aan isticmaalaynaa so waxaa la ternary operator horena u baranay ternary operatorka waa javascript ku jiraa waa iyo luqado kale oo dhan uu ku jiraa fara badan waa un if statement waaye oo hal line laga dhigay one line so let's go back here so waxaan leenahay marka hore waxaan hubinaynaa marka hore typeka inuu yahay checkbox inuu yahay so hadda inta value waaye valuegana meesha ka bixinaynaa okay waxaan hubinaynaa marka hore and also kan linekan hoos noo sokeen si uu wixii noo hal line noogu noqdaan marka hore waxaan hubinaynaa typeka ugu waa kana text box inta waxa waaye kan typekiisa yeah checkbox ma aha typekiisa waa checkbox so inaan hubino marka hore inta aan isbedel sameynin inaan hubino inuu yahay typeka checkbox hadduu yahay checkbox micnaheedu waxa waaye waxaan rabnaa in aan siino wax la dhaho checked kan hadduunan ahayn then sida kuwa kale unbaa oo la dhiil garaynaynaa oo valuega basaan bedelaynaa okay intaas leewaaya so marka hore waxaan fiirinaynaa event.target.type okay haddii waxaan leenahay haddii uu kaas yahay la mid yahay checkbox hadduu la mid yahay waxaa samaysaan leenahay waxaa samaysaa waxaa siisaa calaamad la dhaho is checked so event waxaan leenahay event.target waxaa jiro method la dhaho is checked oo loogu talagalay javascript leeda browser ku fahmayo waxaa la is checked tan waxay siinaysaa inputkan oo checkboxka iyo waxay siinaysaa wixii hadda aan inta ku qorinay oo ahaa check okay waxayna ka mid tahay tan browserkii ku jirtaa waana qayb browser ku jirta so is checked inuu ahaado ka dhig haddii uusan yahay hadduu yahay typekiisa hadduu yahay checkbox waxaa gelisaa checked geli haddii kalena saan u qori kartaa so if statement camal haddii kale waxaan leenahay event.target.value sidii hore right so hadda waxaan niri marka hore waxaa fiirsaa type inta aan gaarin xataa valuega waxaa fiirsaa typeka marka hore fiiri typeka hadduu yahay checkbox waxaad samaynaysaa tan so waxaad siinaysaa wax la dhaho checked
hadduunan ahayn soo ma aha value-gun baa bedelaysaa. Okay, so taas waxay naga anfacaysaa in aan xalino issue-giisa. Okay, so hadda refresh hadaan nahno meeshanadii halkan aan dhag saarno wuxuu leeyahay undefined uu leeyahay. Give me a second, si qalad aan u qoraa malena is checked. Okay, that's sax waaye. Okay, oh, I think we have to change the let me see. So checkbox. Okay, checkbox waaye. Okay, I don't know why it would do that, but let me refresh again. Okay, you should say true or false again. Let's see here. Let me mark false to below. It should be عادي. سان iska ahaado waaye. Let's see. Waxaan misgareysanahay. Is checked event target. Okay, so let's Google that. Let's Google event target is checked. Okay, oh, it's checked man. What checked? Sorry, checked. Okay, so let's see. Refresh. So checked laga soo. So jeedid markii aan saarno check wuxuu leeyahay true, markii aan ka qaadno wuxuu leeyahay false. Okay, so taas waxay noo ogolaanaysaa in aan ka warhayno checkboxta. So event target checked mid kale jirto is checked la dhaho way ka duwanta xoogaha. Like hadda react aan ku jirnaa marka waa that's why u diiday, but hadda kulligood noo shaqeynayaan marka inputs ka dhan. So kulligood waxaan ka bedeli karnaa markaas oo noo shaqeynaya. Hadda ku qorno uu shaqeynayaa kan emailka sidoo kale kana sidoo kale. Okay, so handle changing oo kaasa ugu adkaa inaa qaybtan fahanto. Kadibna handle submit kana sameynayna wax su'aala qaybtan. Any question? Okay, so hadda waxaan sameynaynaa marka handle submit. Handle submit-ka waa function caadi. Waxaan leenahay handle submit waa markii submit la dhaho waaye wixii dhici lahaa. Event inta waxaa waaye waxa ugu horeeya handle submit ku qaadanayo waa maxay? Handle submit-ka function-ka la yiraahdo wuxuu u baahan yahay wax oo qasab markas inuu lahaado oo la dhaho prevent default. In aan hadda for example haddii saan markaan sameyno aan submit dhahno, so major refresh uu sameynayaa datadii oo dhan wuxuu gelinayaa meesha browserka, wuxuu isticmaalayaa sidii HTML-ka caadiga ahaa oo hore u naqaan. So taasaan u diidanahay marka ma rabno inuu HTML-ka hore ahaado. So to do that formkanaga waxaan ka dhigaynaa component-gan controlled component. Hadda kabacdi lagu weydiiyo control component maxaa laga wadaa? Waxaa laga wadaa leedahay waa component form leh, formkeedana aad markii submit la dhaho aad gelinaysid event that prevent default aad gelinaysid. Kaasaa la dhahaa control form. Form la xadiday waa la hayo. Okay, so marka labaadna we could just do cancel log. Laakiin meeshaan waxaan u diraynaa form state. Waxaan u diraynaa API aan isticmaalayna, waxaan u diraynaa database. So hadda ma shaqeynaa handle submit-ka ilaa aan halkan gelino. Let's put inside here. Waxaan leenahay on submit. Waxay la mid tahay function-kan. So markii submit la dhaho function-kan u yar waaye. So hadda wax ka buuxino Ahmed at Gmail something. Inta ka dooro. And then check, and then you have to look at here.
submit aan leenahay halkaas submit markaan dhahno wixii oo dhan uu noo soo bixiyey oo hal object and all the things we need wax su'aala so far so intaan waa inta aan sameynay last time waxaan ku darnay checkbox kan iyo drop down kan waxaa naga dhiman marka validation inaan sameyno so step 3 aan joognay step 4 markana step 4 waa validation form validation inaan sameyno formka haddii meesha la geliyo email inuu email ahaado haddii magaca la geliyo magac inuu ahaado waxyaalahaas oo dhan inaan hubino taasna waxaan sameynaynaa or waxaan sameynaynaa hadda intaan taas gaarin API gaan sameynaynaa dhaqso kadibna kana break aan qaadanaynaa kabacdina kana sameynaynaa okay so hadda cancel log meeshaan sameyn lahayn API inaan u dirnaa waay waxaan isticmaalaynaa API la dhaho request waxa la request.in waa API test waaye wax ku baraaweyn kartid waa u diri kartaa waxna waa kasoo jiidan kartaa so all we need is just qaybta posting aan u baahannahay so we go to request API/users okay kaasaan u diraynaa marka waxaan diraynaa so userskan dadkaan meesha ku jiro yaa lagu darayaa waxa anaga aan dirayno documentationkiisa wixisana waa akhrin kartaa I feel like it waa mid fake so let's use this API gan si aan ugu dirno wax so API haddaan isticmaalayno maxaan u baahannahay what do we need to si aan u dirnaa API ga waxa inaan soo jiidanaa u baahannahay soo dejisano Axios u baahannahay fetchna waa isticmaali kartaa use effectna u baahannahay laakiin hadda use effectiga badanaa waxaa la isticmaalaa markii oo aad data aad soo jiidanaysid oo aadan micnaha aadan maamuli karin tan hadda waxaan sameynaynaa waan diraynaa un wax bas so use effectiga waxaa loo isticmaalaa markii data aad soo jiidanaysid oo laga yaabo inay imaado laga yaabo inay imaanin tan laakiin annaga data ma soo jiidanayno waa un diraynaa bas right waxaan ku sameynaynaa handle submitka gudihiisa so maxaa la jiray Axioska ama API callka ma sameysmanayo ama micnaha waxba ma sameynayo ilaa aan handle submit aan dhag siino right so uma baanin marka use effectiga haddii aad wixii aad diraysid un bas okay so waxaan sameynaynaa marka also haddii wax kasoo laabanaya halkan okay waay maxaa yeelay waa waxay dhacayaan keliya markii functionka loo yara bas ka bacdi so inta just Axioska caadiga aan sameynaynaa so import on line marka hore Axios from Axios okay and then inta waxaan leenahay marka inta gudaheeda waxaan leenahay Axios.post ugu post waxa waay habka data loo diro waaye waxaa jira wax la dhaho get request iyo post request get waan soo baranay waa habka loo soo jiito datada postina habka loo diro waaye so inta waxaan gelinaynaa linkigi kan so let's do that waxaan leenahay then waa promise waaye so habka loo soo jiito waxaa promiseka inaad callback aad siiso waaye so callbackna waa kana so rest aad leedahay ama result waxaa rabtaa dhihi kartaa wixii soo laabanaya intay galayaan marka so we can just say console log rest.data intana waxaan dhihaynaa waa catchki wey so catchkana wuxuu qaadanaya isagana callback oo error ah kadibna we can console log errorka okay so intaas le waa bise so now let's save this aan fiirino marka aan baraaweyno no wuxuu u baahan yahay postiga wuxuu u baahan yahay data la diraayo so postiga wuxuu u baahan yahay marka hore waxaad siinaysaa URL-ki meesha API-ga loo diri lahaa wax laakiin wixii la diri lahaana uu u baahan yahay so wixii la diri lahaa waxaa waay parameterka labaad waa inta so comma leedahay intaa gelinaysa wixii la diri lahaa marka hadda maxaa annaga diraynaa marka what are we sending eventiga okay
so eventiga waxa waaye waa xaaladda lagu jiro waaye laakiin waxaan rabnaa inaan dirno datadoo dhan so ogow eventiga waxa haddaan ku jirno camal dase inputka ama haddaan ku jirno kan ama kan laakiin waxaan rabnaa inaan dirno kulligood hal mar inaan dirno waxaan rabnaa datadoo dhan inaan dirno stateki ku jirtaa datadoo dhan so halkaan stateki noogu jirtaa so statekaan diraynaa marka so inta waxaa gelinaysaa form waana object waaye form state okay save aan leenahay so haddaan fiirina marka cancel logyada kale aan iska bixino too many cancel logs save waxaan gelgelinaynaa hadda let's say Ahmed Gmail something and then drop down something and then check so hadda markaan dirno waa inuu noo soo celiyo API inuu noogu soo celiyo meeshaan request inuu noogu soo celiyo so inuu noo sheego macnaha 200 inuu noo sheego oo ah inay wixii successful ahaayeen okay so saa ujeeda hadda uu noo soo celiyo waxaa ku garan kartaa wuxuu ku daray wax kale wuxuu ku daray created at markii la sameeyey waxaan yuu ku daray so taa macnaheedu waxaa waaye waa uu noo soo celiyo waxaa kaloo samayn kartaa inta waxaad iska bixin kartaa datadan waxaa arkaysaa header wax la dhaho header waa request header wax la dhaho request header waa kana marka so datadii oo dhan config data header request so we get 200 in equals 201 waa tan in equals soo laabata macnaheedu waa successful waaye datadaadina waa tan intii ku jirtaa data okay so tan macnaheedu waxaa waaye inta haddaa fiiriso hadda fresh dhahno let's see sometimes we put sometimes kumujita lakin annaga way noo soo laabatay so that's all matters so hadda API gaan sameynay waxaa samayn kartaa API gaan marka waxaa samayn kartaa hadduu ilaa ku roon yahay waad waxaa gelin kartaa state kale kabacdina informationkina waad soo tusi kartaa meesha hoosaa ku tusi kartaa so meesha hadda intaan lehna cancel log state kalaa samayn kartaa cusub kabacdi statekaasa gelin kartaa wixii soo laabto kabacdina display aa dhihi kartaa soo tusi okay any question su'aal okay bas marka break aan qaadanaynaa kabacdina validation kan sameynaynaa so kan waxaa waaye after break all right let's take 10-minute break
okay soo laabano okay okay so I'm maqashaan u maleynayaa let's see. So validation markii noqoto qaybta validation ka laba qaybood waaye so laba qaybood validation laba qaybood validation kana waxa laga wadaa in formka macnaha wixii la geliyo oo la ogaado qofka uu geliyo wax sax ah waa laba qaybood qaybta hore waxaan isticmaalaynaa barnaamij la yiraahdo yap waxaa package waa loogu talagalay in validation lagu sameeyo qaybta labaadna waa function hubinayo isbedelka formka waa sida camal handle change-ga camal waayo oo hubinayo laakiin kan waa validationka loogu talagalay haddii wax qaldamaan isla markiiba inuu og yahay in wax qaldameen oona micnaha aana sugaynin ilaa formka submit markii laga dhaho so labadaasoo marka yabka marka aan fiirina marka yabka wuxuu yahay yab npm yab waa kana waa package waa loogu talagalay validation lagu sameeyo so hala yab is a javascript schema builder for value parsing and validation so waxaan sameynaynaa waxa la schema waxaa laga wadaa waxa weeye waa sida camal template camal waa schema so waxa weeye waa wax micnaha aad wax ku wax baad dhisaysaa laakiin waxay u tahay template wax kale okay marka aan fududeyna marka waxaan sameynaynaa npm install aa leedahay adiga markii aad isticmaalaysid npm install yep staas uma baahan hadaa habkaan u egtahay waa soo jiidanaysaa waxaad leedahay import kadibna waxaa isticmaalaysaa waxaad sameynaysaa variablekaas waxaa gelinaysaa wax la dhaho yap shape wax la dhaho ama yap object shape waa object waaye waa kana intana waa objectiga marka waxaa sheegaysaa waxaa leedahay nameka waa inuu saan ahaado emailka waa inuu saan ahaado kan waa inuu kan saas ahaado marka waa u sheegaysaa kan saa ujeeda hadda waa string waaye waana required so dhibicdaasa u dhexayso oo lagu kala garanayo so saas u shaqeeya so aan bilaawna marka inta waxaan soo jiidanaynaa yap aan leenahay koraan tegaynaa habka halkaan inoogu sheegayna aan usoo shubaynaa leenahay copy intaan ku copynaa okay hoosaan aadaynaa meesha hadda aan sameynayni waxaan sameynaynaa inta waa shapeki aan sameynaynaa waxaan hadda ka hadlaynaa kan schema so schema waa template camal so waxaan leenahay let schema is equal to schema is equal to yep dot object dot shape so ujeeda objectiga waa function waaye waxaan leenahay yep dot object dot shapeka marka gudihiisa waxaa gelinaysaa objectaa gelinaysaa objectigaas marka waxa dhan ku wada jiraan okay so let's see yeah so objectigaas waxa dhan ku wada jiraan so objectaan sameynaynaa halkaan objectigan gudihiisa yaan gelinaynaa wixii dhan marka hore waxaa sameynaysaa marka waxaad taxaysaa waxyaalaha aad haysatay waxyaalaha haysana waa kuwaana so kuwaan dhan inaan habeeno waaye marka hore so copy aad dhigi kartaa intaad dhagsiin kartaa kabacdi ka waxaana ka tirtiraysaa mid kasta marka wuxuu yahay inaad sheegto waaye okay so kanna ma baahnid yeah u baahantahay I think yeah so kan ugu horeeyo waa magac may maqshaan halka wuxuu leeyahay connectionkaada islo si waa mali maqlaa okay so kan waxaan sameynaynaa waxaan leenahay string waaye waana stringan waxa waaye waa required aan iska dhahno required waa la rabaa
waa loo baahan yahay. So nameka waa required. Kan emailka asagan string aad dhigi kartaa. So waa kana say waa string kadibna email aad gelinaysaa calaamada emailka. waxaan wax horay ugu dhisan waaye yabkan. waxaan leenahay string kabacdina waxaan leenahay email kaasa kana u dhexaysiina comma kan waa string waaye asaga laftirkiisa. So required na maahan len. So let's just say string bas kasana comma u dhexaysi object caadi ku dhex jirnaa. Positionka isagana string waaye laakiin waa drop down. So let's see if our drop down haduu jiro inta. Select. Okay, so ma jiro, so just a string lelena this. String required na maaha. Lastly waxa waaye waa checkbox ka. So waxaan fiirinayna checkbox inuu jiro. Check availability. No, that's not what we're looking for. So Boolean or kana. So runs type check against past value. It returns true. If it matches, it does not cast. So halen hay so Boolean cast isticmaalena. So kana hawaye type is hawaye Boolean and hawa true or false waaye. So halen hay Boolean like that. Boolean and waxaan leenahay required. Aku qasbay qofka. So let's see. Required man qalday. Okay. Let's see how this meaning now. So required kasasas on sameyne. So yep inaan ka hormarino waaye, sorry. So kulligood yep inaan ka hormarino waaye. So intaan dhahno yep dot string dot cast and dot string dot cast. Okay. So hadda marka waxaan ma isticmaali karno waa inaan isticmaalno wax la yiraahdo waa inaan sameyno function kale. So function kaas oo kiyan ka hadlayaan dhahayay inuu ilaaliyo wixii isbedelka inuu ilaaliyo. So that function waxaan dhihi karnaa something like handle validation waxna asaman. waxaan leenahay kan const handle waxaan leenahay validation change. wuxuu ilaalinayaa validation qaybta validation ku ilaalinayaa wixii isbedelo. So sida handle change-ga camal waaye wax yar oo ogdoon leebis. معناها magacan ba iskaga mid yihiin laakiin gudaha waxaan isticmaalaynaa yab baan isticmaalaynaa. Yab baa waxay leedahay marka hab oo loo ilaalin karo wixii. waxay leedahay maxaa la dhihi jiray promise based system ay leedahay. So tan marka waxaa waaye yab ay ku ogaanayso wixii isbedelay. Okay, waana inaan sameyno state ilaalinayo isbedelada macnaha qaladaad ka dhacayo. So qorad tagaynaa state kan hoostiisa waxaan sameynaa state error error hadduu jiro state kan uu galayaa basically. So waxaan leenahay error to say errors iska dheh intana set errors. Okay. Use state waxaan ka dhigaynaa I think empty aan ka dhigi karnaa darno or let's see we could keep it yeah initial state can click karna. Put this initial state here. Okay, so error kana isticmaalana hadduu error jiro uu galaya state kan uu galaya basically. So all the way down. So akana meeshan joognay hadda waxaan sameynaynaa wax la dhaho habka yab ee u ilaalisan sameynaa. tan marka waa wax oo ku jiro meeshan yabka ka soo qaadan karto markasta. waxaa la dhahaa validation function of the house reach let's see
hal mar aan qoraynaa so uma baahan inaan mar kale hataa aad qorto so markas aad isticmaali kartaa so waxaan leenahay yep dot waana promise so waxaan leenahay inta dot reachka marka waa function waaye wuxuu soo jiidanaya wixii u baahannahay so wixii micnaha markaas aan ku jirno soo jiidanaya so marka hore waxaan siinaynaa state waxaan siinaynaa schema-daan siinaynaa so akana schema so schemada soo jiido ama wixii micnaha markaas la fiirin lahaa so akana schema kadibna waxaa soo jiidataa waxa aan ku jirno so waxaan leenahay tan event target name okay so qaybta labaad waa mid kale dot kale dot validate aan leenahay validate waxaan validate garaynaa waxaan hubinaynaa value inuu ku jiro meesha so habka hubinayna value waxaan leenahay event dot target dot value wax ma ku jiraan waaye okay micnaha validate garay ama micnaha sax ama hubi inay sax yihiin wax ku jira meesha midda ku xigta waxaa waaye waxaan leenahay waxaas markii aad samayso oo soo jiidato wixii aan ku jirnay kabacdina aad hubisay inay wax ku jiraan kabacdi waxaan leenahay daadanki waa kii hore u taqaanin oo waa promise-ki waaye so markas wuxuu u baahan yahay callback function inta waxaan gelinaynaa wax la dhaho valid harta dhigi karta halkan kabacdina micnaheeda valid waxaa waaye waxaan aan soo marnay way saxan yihiin waaye so haddii saxan yihiin saan samee waaye dankan samee hadduuna saxnayn daad kachaan sameynaynaa okay so hadduu saxan yahay waxaan leenahay errorska waxaa ka dhigtaa ever so set errors to empty waxaan leenahay set errors ogo tan waxa weeye waa stateka naga caadiga waa set errorskan waxaa ka dhigtaa empty aan leenahay lakin empty intaana gaarin waa inaan copy ka sameyno errorska hore ugu jira haddii errors jiraan so waxaa laga yaabaa erroryaal badan iyo ku jiraan maqaladaad badan so copy ka samee kulligood kabacdi waxaa samaysaa midaan aan hadda ku jirno dawana hadda ku jirno this one waxaa ka dhigtaa errorkeeda waxaa ka dhigtaa ever so habka u sameynayna taas waxaa leenahay event dot target dot name valuegeeda waxaa ka dhigtaa oo qaybta errorka bisan ka hadlayna kama hadlayna valuega caadiga ahaa oo datada ku jirtay ever ka dhigaan leyna micnaha waxba ha gelinin so hadda error ma laha laakiin hadduu error jiro waaye there is error waxaan leenahay catch aan leenahay catchka waa wuxuu u baahan yahay callback asagana waxaan dhigi karnaa error so error waxaan leenahay waa function waxaan leenahay waxaa bedeshaa stateka naga error waxaa gelisaa errorka hadda micnaha noo soo baxaya ama qaladka hadda aan ku jirno inta geli so let's do that so waxaan leenahay set errors copy garay stateka marka hore errors kadibna waxaa bedeshaa midda aan ku jirno meesha formka qaybta aan ku jirno oo sida hore u sameynay event dot target dot name waxaa ku bedeshaa valuegiisa waxaa ka dhigtaa errorka hadda meesha aan soo jiidanay ka dhig so valuegiisa waxaa waaye error dot errors iyo kan ugu horeeya ka dhig waaye so waxaa laga yaabaa erroryaal badan in meesha ku jiraan kadibna midka ugu horeeya ka dhig waaye so and this one inaan ku bedelo waaye kanaan bedelaya so wixii qalad oo markaas jiro geli meeshaan stateka naga geli kabacdi waan tusi karnaa marka qofka qaladka so whatever qalad jiro waan tusi karnaa markaas so markay noqoto qaybtan that's it intaas waaye so functionkan handle changiga oo validationka shaqadiisa intaas waaye so hadda waxaan sameynaynaa kan laakiin waa inaan gelino waa inaan u dirno handle changiga inaan u dirno waaye so inaan inta gelino waaye si markastoo isbeddel dhaco uu functionkan oo validationka sameynayana uu u shaqeeyo caadi u shaqeeyo so let's do that aan gelino marka let's see so inta waxaan gelinaynaa waa handle changiga naga caadiga ahaa waxaan gelinaynaa handle validation change kabacdina waxaan siinaynaa event okay eventga waxaa wixii aan ku jirno markaas safe aan leenahay wax isbeddel hadda ma dhacayaan maxaa yeelay iskumaana xirin validationka iyo formka war iskama hayaan formka maba ogoba in validation la sameeyey oo functional sameeyey waxaas war kama hayo habka kaliya oo lagu tusi karo waxaa waaye inaad u sheegto wixii
so habka uu sheegayna waxa waaye qaybtan hadda aan ku jirno oo qaybtan hadda tan formkan input name-ka meeshan hoostiisa waxaan ku qoraynaa error-kii so waxaan leenahay hadduu error jiro there is error halkan ku qoraan leenahay halkan soo geli so waxaan gelinaynaa marka waxaan leenahay waxaan isticmaalaynaa ternary operator-ka aan daay baranay aan isticmaalaynaa so waxaan leenahay hadduu qalad jiro say ku ogaanaysaa waxaa fiirinaysaa stateka waxaa waaye waa errors waaye errors that name soo jiido kaas haddii lengthigiisa ama dhererkiisu ka badan yahay zero hadduu zero ka badan yahay oo micnaheedu waxaa waaye hadduu error meesha ku jiro waaye oo loogu talagalay nameka then waxaan leenahay so natus errorkii aan leenahay so habka lagu sameynaya taasna waxaa waaye waxaan leenahay ternary operator waxaan leenahay inta waxaan soo bandhigaynaa for example isticmaalkana p paragraph inta error soo geli waaye so we could just say errors dot name so errorka magaciisa halkan soo geli haddii kale waxaan dhigi karnaa halkan null waxba soo bandhigin waaye so tan qaybtan ugu horeysa waxay hubinaysaa error ma jiraa horta oo loogu talagalay nameka qaybta nameka loogu talagalay hadduu jiro micnaheedu waxaa waaye na tus hadduuna jirin null micnaheedu waxba ha tusin so safe haddaan hadda aan fiirino qaybta magaca haddaan fiirino haddaan ku qorno okay waaye Ahmed okay haddaan tirtirno if we go back kasa wuxuu leeyahay this field is required this is required field okay sababta u dhahay required field yaa ii sheegi karo meeshaan inay ku jirtaa sababta aan u dhahayno magaca nameka required waayo micnaha waa qasab ku qasban tahay inteen ku sharaxnay taas bilowga meeshaan ku sharaxnay sama kaas waxaan dhiri magaca waxaa ka dhigtaa required ku qasab qofka inuu magaca geliyo hadduu ka bixiyo magac waxaa usoo baxaysa calaamad dhahayso this field is required informationka waa bedeli kartaa marka kan intaa ka bedeli kartaa waxaa dhigi kartaa halkan waa ku qasban tahay inaa magac geliso okay save refresh haddaan ku qorno wax Ahmed okay waaye haddaan ka tirtirno waa ku qasban tahay inaa magac geliso okay waana micnaha formka waxba maadan dirin waxba samid maadan dhihin waa qoraalka qorto saa ilaalinaya wax yar waxaan ku daraynaa oo red aan ka dhigaynaa let's add red so intaan tegaynaa kana waxaan ku daraynaa class name oo la dhaho error okay taas waxay nooga dhigaysaa red kasa okay so now kuwa kalena sidoo kale all you have to do is kan lay copy garanaysaa waxaa ka bedelaysaa nameka intaa ka bedelaysaa namekan intaa ka bedelaysaa waxaa ku bedelaysaa mid kasta uu yahay intaas le waaye copy intaan gelinaynaa meesha nameka email aan ku bedelaynaa kan save so haddaan emailka aan gelino wax markaasa wuxuu leeyahay email ma waxaan this must be email so wuu ogyahay already waxaan inay email ahayn haddaan dhahda at gmail okay ku leeyahay good job haddii aan tirtirno emailka oo dhan waa inuu la dhaho required waaye so aan hubino markaasa required maana dhihin soo jeedid so markii aan dhagsiino required aan dhagsiino waa hadda inuu na dhahaa markaan ku qorno wax wuxuu leeyahay email ma waxaan laakiin haddaan tirtirno wuxuu leeyahay this field is required kullina waa bedeli kartaa messagekooda halkan intaa ka bedeli kartaa hadii kartaa email sax ah geli okay so haddii aan xagelgelin oo kaasa email sax geli marka email waxaa lagu gartaa at inay ku jirto iyo wax kale ka dambeeya .com ah so kulligoodna saasaan u copy garaynayna marka so just gonna copy qaybtan and paste here waxaan ku bedelaynaa motivation aan ku bedelaynaa kan meesha email ah kana sidoo kale copy aan leenahay intaan gelinaynaa waxaan ku bedelaynaa positions
kan ugu dambeeyana waa sidoo kale waxaan ku bedelinaa I think terms okay so terms meesha rabtaana gelin kartaa waxaan messagekan so hadda haddii aan refresh dhahno termska haddii aan dhag siino soo ma jeedid sheekuu noo keenay annagaa bilowga khaladnay I think so termska waa inaan dhahno inaan calaamad gelino waaye dhahayso waa ku qasban tahay this must be a boolean type so intaan ka bedelayna go up here inta waxaan leenahay message aan gelinaynaa waxaan leenahay waa in uu ahaado fadlan dhagsi camal aan leenahay okay so hadda dee aan dhag siino aan ka baxno let's see wax baa qalday boolean that required okay ana saas noo sheego waa boolean waaye waana required okay so refresh check that this must be a boolean type the final was okay so inta meeshan kore inaan wax ka bedelno waaye so tan inaan dhahno waa false marka hore okay ujeedad check haddaan saan ka qaadno inuu soo bixiyo xad uu soo bixiyo let's go back to here waxaan leenahay boolean aan raadinaynaa boolean value okay it's type okay 100 vanin so boolean waxaan leenahay yep aan gelinayna hore yep dot boolean okay saas waxaan u sameynay so Google ay kala hadin kartaa waxaa leedahay yep boolean true that's not set to false okay so sometimes issues yara iska jiri karo waa raadin kartaa waxyaalahan waa data waa system oo horey dadka u isticmaaleen dad badan u isticmaaleen so saan inaad dhahdo waay marka we have to do this we have to say one off true must be okay so saas inaan xasan ku qorno waay so inta waxaa leedahay marka we say yep dot one off true I think waxbaa inta ka maqan one off okay so let's copy this whole thing kuma ka maqan yeah so must be okay so hadda intana I think required is kana noqonaysa so ma baan required so hadda daan check saarno inta waxaan ka dhigaynaa false aan ka dhigaynaa so hadaan saarno you good hadda ka qaado wuxuu ku leeyahay must accept terms and services okay haddaa saarto okay ku leeyahay waxaan kaloo samayn karnaa buttonka xataa disable waa ka dhigi kartaa inta waxa dhan laga dhamaystiraayo oo validationka dhan uu sax yahay taas laakiin waxaan ka cabsanaa xoogaa inay confuse in ku samayso so laakiin muhiimadda intaas waay in aan wax kasta aan ogaan karno aan ku samayn karno validation wax su'aala any questions okay qaybtan validationka habkaan ay dhisantahay baa u samayn kartaa waxyaalahan baa bedelaysaa markii aad wax kale ku samaynaysid so meeshii aad waxaa fiirinaysaa statekaada ama initial stateka wixii ku jira halkaan dhan waa inaad kulli validation ku samayso marka intaas le waa wax su'aala okay bas insha Allah let's look at the casharka marka so casharka wuxuu la mid yahay kii hore waxaa samaynaysaa Ustaad, go ahead
iminka marka submit la dhaho oo xogtii ku daro halkaynu doonayne isma masaxayo waayo inputyadan oo dhan dee stateka ugu jiraan wax waliba marka sidee baynu masaxi karnaa okay habka masaxi karna waa easy so waxaan sameynaynaa marka hadda let's say camal intaan gelinayna Ahmed @gmail something and then markaan dhahno submit wuxuu sidii hore u sameynayaa uu dirayaa datada laakiin ma masaxayo wixii hore ku jiraan so habka loo masaxi karo waa very easy waxaad sameynaysaa meeshaan gudaheeda waxaad sameynaysaa waxaad stateka waxaa ku bedelaysaa statekan waxaa ku bedelaysaa initial statekan so waxaa leedahay set state form initial state so all we have to do is set state form or set state form intaan jeclahay intana waxaan ku bedelaynaa initial state form I think waa qaldanahay set form state so meesha API-ga callka gudihiisa waaye so meesha then markay noqoto kabacdi waxaa leedahay stateka waxaa ku bedeshaa initial stateki hore marka submit loo dhaho so hadda daan isticmaalno refresh aan leenahay waxaan qoraynaa submit aan leedahay uu tirtirayaa wixii submit garayna uu dirayaa and then ku leeyahay delete and this shouldn't be here okay any question su'aal image ma lagu dari karaa image waa lagu dari karaa halka wax oo image-ka dhibka keenayo waxaa weeye image-ka meesha aad ku kaydin lahayd inaad keento so hadda I don't think API-ga hadda isticmaalayna image-ka inuu aqbala in kale ma garanayo fiirin karnaa take a look at it I don't know why this is here and I'm using that saas kusoo jiita waxaan sameynaynaa let's go to kii hadda reska I think no regress let's look at inaan image diri karno avatar baakana so I think waa ku diri karnaa image laakiin waa same thing waa image-ka halka waxa uga duwan yahay image-ka waxaa waaye in aad library soo jiidato so waxaad sameyn kartaa waxaa leedahay react image upload aan leedahay so halkana react image uploading kadib waxaa sameynaysaa habka kan uu kuu sameeya u raacaysaa so hadda kan saa ujeedid wuxuuna siinayaa objectigan dhan uuna siinayaa waxaan dhan informationkan so image-ka xoogaa more complicated waayo waana arki doontaan insha allah mar kalaan soo qaadan doonaa laakiin waxaa isticmaali kartaa library kala duwan haddii haddaad inaa hoos kasoo sameyso waa sameyn kartaa laakiin shaqo dheer waa image keligiis asaga keligiis in state gooni loo sameeyo waayo oo la trackgareeyo image-ka so micnaha I think let me see I don't think inuu jiro input caadi ah oo HTML input image upload uu jiri karaa laakiin we have to let's see so input file and okay so yeah so uu jiraa waa kana laakiin I don't think in browserado dhan aqbalayo okay so input aad sameynaysaa inputka typekiisa file ka dhigaysaa kadib waxaa sameynaysaa accept image waxaana siinaysaa hadduu wuxuu baahan yahay magaca u sameynaysaa ka bacdina laakiin imageka markii la upload gareeyo waa inuu meel lagu kaydiyo waayo so kanaada PHP aa loo dirayaa soo majeedid page oo PHP aa loo dirayaa wixii so imageka markii la upload gareeyo adi marka meel inaad ku kaydaysaa u baahan tahay otherwise meesha rub iska aadaya so we could try kan oo isku dayi karnaa so we could say kanaan soo koobi garaynaynaa waxaan u baahannahay in aan samir halkaan gelinaynaa meesha ka horeyso checkboxka label aan u sameynaynaa label waxaan leenahay class name css ka ahda label caadi inputka and then close the label so or just
let's just put it here. Okay, can you self-closing we have input can waa inaan ku darno state inaan ku darno waaye kan soo magaca u sameynayna so image waa magaciisa inta ku darayna image keep it empty if I want and then waxaan sameynayna save this so widget noogu daray like hadda submit markaan dhahno just wuxuu save garaynayaa linkigi so let's try and I think issue wuxuu noo keenaa validation wuxuu baahan wixii dhan inuu hadda qalad uu keenaya because validation kan uu ku xisaabtamayaa kumana jiro halkaana kuma jiro so intan inaan gelino waayo we're just gonna say image yep dot I'm not sure image inuu jiro just gonna guess image I think yep image validation file so hajiro wax la yiraahdo so handi karna file handi karna yep required you could just say string because we're on text so file can make it easy so we say string okay so save this na isku dayno marka hadda inaan dirno wax Gmail so we're get that and check let's look at wuxuu noo soo celiyay marka kan so aan dirnay let's look at the data so saa u jeedid wuxuu sameeyay image waxa kuma jiraan so that means it's not okay because it's not even tracking anything so inaan ku darno waaye handle changing wixii inaan ku darno so value giisu waxa waaye waa form state dot image iyo on change dii la bedelana waa handle change handle change okay I think an issue in a syndona so do it and then let's add something here okay data okay so ujeed wuxuu na siiyey waxa la fake path waxaas so ujeedid waa iska I don't think that's you can't even view that wala fiirin kara hataa link maaha so waxa u baahanta marka hab aad u diri karto datada oo laakiin waxa la jira image ka sawirka meel la gelin karo so sawirka markasta server u baahan yahay so it has to have a server so kana isticmaalayna I don't know inuu aqbalayn kara but wuu hayaa meeshii wixii aan u dirna magaciisu hayaa so that's one way so marka laan baran doonaa insha Allah so any other question su'aalo kale and this one dhawaan ku soo daran HTML in image laga upload garan karo secure na maatan this is very project weyn hadaad sameynaysid don't do this hab kala jiro so waxaa isticmaasha package loogu talagalay oo react leedahay secure amaan ahoo waxa la rabaa aan la soo gelinin and sawirna waa la gelin karaa ugu virus keep that in mind any other question okay let's look at the project here waxaa kii hore camal waxaa sameynaysaan reactive project sameynaysaan waxaa leedahay mbx create react app kabacdina magaca bixinaysaa magaca rabta bixinaysaa inta adii ku jira yap iyo waxaa soo install garanaysaa axios laasa soo gashanaysaa waxaa sameynaysaa component la yiraahdo form.js iyo tan app.js oo ku samaysan mvp ga waxaa laga rabaa
we want you to create a form enroll user waxaan rabnaa form inaad samayso oo la gelinayo dadkan informationkooda magac email password iyo terms of service-ka waa check aad samaynayna camal iyo submit button oo u diraayo server u diraayo so serverka waa kii hadda isticmaalayna so waa kana sida hadda u isticmaalina u isticmaali kartaa so datadaas baad diraysaa kaas u diraysaa haddaa rabtana waa soo display garan kartaa so waa kana inaad soo bandhigtana datadaas waa loo baahan yahay so markii aad dirto submit ahdo oo inaad haddana state kala samayso oo u dirto datada si aad usoo bandhigto so that would be another thing stretch kana waa kana waxaad samayn kartaa any question wax su'aala okay all right inshallah khayran idin rajayna inshallah soo dadaala dadkii aan soo dhameystira casharada soo dhameystira intaas aan kaga baxaya inshallah السلام عليكم